arrimaha federaalka. mudana guddoomiye mudanayaal, dowladda puntland waxaa lagu dhisay hadafka ah in la helo hab dowladeed oo dadka reer puntland isku maamulaan, isla markaasna la raadiyo dowlad soomaaliyeed oo ku dhisan nidaamka federaalka oo puntland sidaa uga mid noqoto. si loo ilaaliyo midnimada dalka sida ku cad dastuurka puntland qodobkiisa 4 farqadiisa 1, puntland waxay door shariif ah ka qaadatay shirarkii dib u heshiisiinta Soomaaliya iyadoo la garab istaagtay taageero siyaasadeed, ciidan iyo dhaqaale. waxay intaas u sameynaysaa in la helo dowlad federaal oo Soomaaliyeed oo waxna la wada leeyahay waxna la kala leeyahay, si mar kale looga baaqdo burburkii 1991. dowladda puntland waxay ka tanaasushay danaheedii gaarka ahaa si loo xaqiijiyo dhismaha dowlad Soomaaliyeed. sidaad la wada socotaan, dowladda puntland waxa ay diidanayd ilaa ay shirkii dib u heshiisiinta Soomaaliya ee ka dhacay Carta 2000 in dowladda Soomaaliyeed lagu dhiso nidaamka qabaliga ah ee 4.5. shir kasta dowladda puntland waa caddaa mowqifkooda, mar kastana waxay uga tanaasulaysa in uu burburin nidaamka dowladeed ee markaa jiray. waxaa ugu dambeyn heshiiskii dowladda puntland iyo dowladda federaalka ay ku kala saxiixdeen abriil 2016 magaalada Garowe, ayna goobjoogayaal iyo damaanad qaad ka ahaayeen beesha caalamka, kaasoo caddeynaya in nidaamka awood qaybsiga 4.5 aan mar dambe dib loogu noqon doonin, isla markaasna heshiiskaas lagu caddeeyey geedi socodka looga bixi lahaa, taasoo ahayd in dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah ka wada heshiiyaan nidaamka doorasho ee ugu habboon si waddanka uga dhaco doorasho qof iyo coda. mudanayaal iyo marwooyin, waxaan la wada soconnaa in dowladda federaalka ah ay ku fashilantay inay guulo laga gaaro lagana heshiiyo nidaam doorasho, dhammaystir dastuur, awood qaybsi khayraad qaybsi, nidaamka maamul maaliyadeed, nidaamka garsoor iyo maqaamka caasimadda oo dhammaantood aasaasi u ah hirgelinta nidaamka federaaleynta waddanka. intii aan xilka la wareegay waxaa dhacay hal kulan oo isugu yimaadeen madaxda dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah, kaas oo guuldarro ku soo dhammaaday. taas oo sababta ugu weyn ay ahayd in madaxda dowladda federaalka ay awoodda go'aanka gaaridda arrimaha masiiriga ah ay rabeen in ay keligood isku koobaan, taasoo ka soo horjeeda dastuurka federaalka iyo mabaadi'da federaaleynta dalka. waxaa intaas idiin caddaynaysa dowladda federaalka ah iyada oo aan kala tashan lagana heshiin nidaamka doorashada waxay diyaarisay xeer ay ugu talagaleen in doorashada lagu galo, kaasoo sharciyeynaya in doorashada lagu galo nidaam axsaabta badan iyo nidaamka awood qaybsiga ee 4.5 oo isku dhafan, kaasoo ka soo horjeeda dastuurka ku-meel gaarka ah ee dowladda federaalka, isla markaasna ay dowladda puntland ka soo horjeesatay, caddaynaysana aragtideeda oo ku aadan qodobada soo socda. dowladda puntland waxay mar kasta ku taagan tahay in doorashada golayaasha sharci dejinta iyo madaxweynaha ay ku dhacdo waqtigeeda, lagana fogaado muddo kororsi keeni kara xasilooni darro iyo burbur. in la laalo xeerka doorashada ee la ansixiyey, kaas oo ay ku jiraan qodobo badan oo ka hor imaanaya dastuurka ku-meel gaarka ah. in saamilayda siyaasadeed ee Soomaaliya ay isugu yimaadaan shir wada tashi ah oo degdeg ah si ay uga heshiiyaan nidaamka doorashada, maamulka doorashada iyo arrimaha kale ee ku hareeraysan doorashada, taas oo ah waajib dastuuri ah. waxaan caddaynaynaa in guddiga doorashada madaxa bannaan ee heer federaal ay u xilsaaran yihiin qabashada doorasho qof iyo cod ah, laguna heshiiyey. mas-uuliyadooduna ma aha in ay ka hadlaan ama u gogol xaaraan muddo kordhin loo sameeyo golayaasha dowladda federaalka ah. in beesha caalamku ka shaqayso sidii ay ku dhici lahayd doorasho loo dhan yahay, la isla ogol yahay, kuna qabsoonta waqtigeeda, iyadoo la tixgelinayo in aan dowladda federaalka ah dhammaystirin shaqooyinkii aasaasiga u ahaa qabashada doorashada qof iyo cod. waxaa kaloo jira in dowladda federaalka ay ansixiyeen xeerar badan oo aan loo marin habraaca xeer dejinta, oo ay ka mid tahay in xeerka ay ka mid tahay lagana la tashan cidda ay khusayso oo ay ugu horeyso dadweynaha iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. waxaa xeerarkaas ka mid ah xeerka batroolka oo ahayd in laga heshiiyo
habqaybsiga khayraadka inta aan xeerka la ansixin dowladda puntland waxay horey u caddaysay maantana ku celinaysaa in xeer kasta oo aan dowladda puntland lagala tashan in ay inaysan qayb ka noqon doonin fulinteeda haddaba dhaqamadaas aan kor ku soo sheegnay oo ay ka mid yihiin wada tashi la'aan awood sheegashada siyaasadeed deeqaha caalamiga ah iyo ku dhaqan la'aanta dastuurka waxay qayb ka yihiin aragtida guracan ee la rabo in lagu wiiqo nidaamka federaaleynta soomaaliya ee lagu heshiiyey aragtidaas oo ah mid u adeegaysa dhiirigelinta nidaamka aragtidaas oo ah mid u adeegaysa dhiirigelinaysana nidaamka soomaali ku burburtay ee dowlad dhexe oo xoog leh strong unitary system sidaa daraaddeed waxaa la gudboon dadka reer puntland iyo soomaali inteeda kale in ay ku baraarugsanaadaan aragtiyahaas guracan ilaashaana nidaamka federaaleynta waddanka in aysan ku ciyaarin siyaasiyiin dano gaara leh mudane guddoomiye mudanayaal dowladda puntland waxay mar walba soo dhoweynaysaa sidii dadweynaha iyo siyaasiyiinta reer galmudug ugu tashadeen aayahooda horumarinta degaankooda iyo dadkooda una sameeyeen dib u heshiisiin dhab ah iyo yegleelid maamul loo dhan yahay oo hanta hoggaaminta galmudug taasoo qayb ka noqonaysa nabad ku wada noolaanshaha bulshooyinka dariska sida puntland iyo galmudug iyo ka wada shaqaynta la dagaalanka argagixisada dembiyada abaabulan iyo xakamaynta colaadaha beelaha wada degan oo dariska ah kuwaasay ugu dambeysay sidii loo maareeyey colaaddii beelaha ee taagnayd loona abaabulay dib u heshiisiin bulsho sidii shirkii ka dhacay bandiiradley isla markaasna laga wada howlgalay argagixisadii dadka ku dhibayay magaalada gaalkacyo iyada oo qayb ka mid ah la laayay qaybna la soo qabtay waxaan rajaynayaa in la joogteeyo wada tashigaas dowladda puntland waxay sidoo kale soo dhoweynaysaa heshiiskii taariikhiga ahaa ee ka dhacay magaalada nairobi oo lagu dhammaystiray khilaafkii u dhexeeyey madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islaam iyo golaha isbeddeldoonka jubbaland taas oo puntland qayb ka ahayd isu soo dhoweynta madaxdii kale aragtida duwanaa dhammaan dadaaladaas aan soo tilmaannay ee puntland qayb ka ahayd waxay ka turjumaysaa sida puntland ay u dareensan tahay mas-uuliyadda weyn ee ka saaran taabagelinta hannaanka federaalka xalinta khilaafaadka ka dhexeeya bulshada wada dhisatay maamuladaas iyo xoojinta iskaashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka sida aan horey u caddaynay guddoomiye mudanayaal sida aan horey u caddaynay puntland waxay soo dhoweynaysaa wax kasta oo aan wax u dhimaynin madax bannaanida dowladda soomaaliya iyo xuduudaha dowladda puntland waxaan caddaynaynaa in aan marno oggolaan doonin natiijo ka soo baxda wada hadal kasta oo lala galo maamulka somalilan ee puntland aysan qayb ka ahayn puntland waxaa kala dhexeeya maamulka somalilan khilaaf dhuleed taasoo u baahan in aan ka gaarno xal waara si looga fogaado colaad jiitanta oo dhiig badan ku daato